في الأولى وفي أخراك أفلحت في الأولى وفي أخراك النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك النفس والشيطان إن خالفك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لباتن يلحاد الله يرى سبحانه وتعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وآية لباتن يلح ودرسينا وكبل عبنا markii gabadhii xoolaha uu waraabiyay oo geed intuu tagay ilaahay uu weydiistay rizq Allah inuu soo dejiyo labadii gabdhood midood oo soconaysa waa tii ay u timid tee ahayd mutii yareed bay ahayd masitii weynayd ilaahay wuxuu inoo sheegay midood inay ahayd waxana soo ku soo arooray taasay ahaydna ma jidho wax aynu hadda aynu ka faa'iideynay inoo magacaabaana ma jidho labadii gabdhood midood bay ahayd way u timid iyadoo aad u xishoonayso aad u asturan waxayna tiri markaas inakeen aabbahay ayaa kuu yeeraya si uu kaaga abaalmariyo xoolihii aad noo waraabisay. dabeedna gabadhii buu soo raacay, ninkii odayga ahaa buu u yimid, dabeedna odagii wuxuu uga warramay wixii uu soo maray nebigu calayhi salaatu wassalaam. odagiina waa u bishaareeyey, wuxuu ku yidhi laa takhaf najawta min alqowmi aldaalimiin, waxba ha biqin kuwii daalimiinta fircoon iyo qoomkiisii waa ka badbaaday oo meeshaan dowladoodu ma soo gaari kadho. qaalat waxay tihi ixdaahumaa labadii gabdhood midood ayaa waxay ku tiri aabbaheed yaa abati aabbow ista'jirhu kirayso. tan culimmada waxay u badan yihiin waa gabadhii nebiga u yeedhay calayhi salaatu wassalaam. qaalat waxay tihi ixdaahumaa labadii gabdhood midood yaa abati aabbow ista'jirhu, ninkan inoo kiray bay tiri, ariga ha inoo raacay, xoolaha ha inoo raacay, ista'jirhu ajiir ka dhigo, qof inoo shaqeeya oo aynu kiraysanno inoo ka dhig. inna khayra man ista'jarta, qof aad ajiir ka dhigatid oo aad kiraysatid waxaa ugu fiican ugu khayr badan alqawiyu, ninka xoogga leh, al-amiinu oo aaminka ah. labada sifana muusa iska leh, xoog buu leeyahayo dee hal mar ariga siduu ugu waraabiyey ayay arkaysa oy la yaabta. aaminna waa yahayo culimmada qaarkood waxay leeyihin markay isa soo raaceen ayuu wuxuu ku yidhi gabadha maandhay aduu gadaal iga soco oo itilmaan si maradu intay kaa duusho kubabkaaga iyo lugahaaga aanan u arkin. in badan baa culimmada sidaa tiri, allaahu aclam. arrintaas sugnaanshaheeda ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala. qaalat ixdaahumaa yaa abati aabbow ista'jirhu bay tiri ninkaan kirayso, macnaha nin inoo shaqeeya ka dhig. inna khayra man istaajarta, arrintiiba marka sababaynaysa cid aad kiraysatid waxaa ugu khayr badan alqawiyu, ninka xoogga leh, al-amiinu oo aaminka ah. culimmadu waxay yidhaahdeen qof kastooo qabanaya shaqo xoog looga baahan yahay labadaas sifo waa inuu leeyahay. shaqadaa xooggeediina waa inuu leeyahay, daacadna waa inuu yahay, aamin ah. qofka sarkaalka noqonaya, ninka shaqaalaha ah, ninka xooggiisa ku shaqaynaya oo dhan labadaas sifaa laga rabaa. haddii qofku maskax uu ku shaqaynayo iyo cilmi uu bartayna nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wassalaam labadii sifo uu sheegtay ayaa laga rabaa. innii xafiidun caliim, waxaa loo dhiibtay qof ilaalinaya inuu yahay oo aamin ah, cilmina uu leeyahay. waaka haddii shaqooyinka dadka loo dirayo loo eegi lahaa sifaadkaas waxayna ka xumaan lahaa ma jireen. badanaabaan hadda cilmigii waa joogaa, xooggiina waa joogaaye, ammaanadii baa maqan iyo xifdigii. allahu mustacaan. markaasaa meeshii la taagnaa 60 sano weli la taagan yahay, maxaa yeelay daacad darro ayaa meeshii taalla oo daacad lagu shaqeeyaa ma jiro. qaala wuxuu yidhi markaas cabdullaahi ibn mascuud radia allahu tacaala canhu aayaddan markuu fasiraya wuxuu yidhi afrasu nnaasi halaatha, dadka waxaa ugu fiira dheer 3. firaasada waxaa la yihahdaa qofku intuu qof fiiriyo
markuu arko qofka dhaqankiisa iyo suluugiisa iyo hadalkiisa inuu qofkaas alleele qiyaaso qofkan mustaqbalka qof qiimo leh inuu noqon doono oo shaqada loo diro ka soo baxaya oo hogaamiye ah. waa ka saddex qof ayaa dadka ugu firaasa badnaa buu yidhi. mid waxa weeye waa gabadhan tiri yaa abati istaajirhu ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin. waxay aragtay ay fahantay muuse in adag inuu yahay mustaqbalkana wax khayr inay kasoo socdaan. aabuu ninka inoo kiray bay tiri, ninkan nin caadiya ma aha. ninka labaadna wuxuu ahaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam, ninkii gurigiisa uu joogay waatuu ku yidhi xaaskiisii akrimii mathwaahu casaa an yanfacanaa aw natakhidahu walada. wiilkii markuu sidaa u eegay ninkaas wuxuu arkay nin wax soo wada inuu yahay qaali ah. wiil yar buu lahaa markaa nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam, marka godka lagu tuurayo ilaahay uu kasoo badbaadiyey. xaaskiisa uu sida ku yidhi wiilkan karaamay buu yidhi, maxaa yeelay inuu ina anfaco ama wiil aan ka dhiganaa dhici ka dheh, ninkan nin culus weeye ka warhay. qofka saddexaadna waa abubakr buu yidhi, maxaa yeelay dad khulafadii buu sidaa u fiiriyey raggii. cumar buu kala soo baxay radia allahu tacaala canhu. cumarna haddii qiyaadadiisa waynu la soconna iyo waxa ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa uu ku xaqiijiyey lagama hadli karo. qaala wuxuu yidhi odagii markaas, innii anigu uriidu waxaan doonaya an unkixaka inaan kugu nikaaxiyo ixdabnataya labadaydan gabdhood middood haatayni oo labadan ah. waxaana kugu nikaaxinaya calaa an ta'juranii inaad ii shaqaysid oo ajiir aad ii noqotid 8 xijaj sanooyin oo 8 ah. fain atmamta haddaad dhammaystirtid 10 sano fa min cindika adiga agtaada wey, adiga go-aankaaga iyo taladaada wey. laakiin waxaan aan kugula heshiinaya waa 8 sano. wamaa uriidu mana doonayo an ashuqa inaan ku dhibo calayka korkaaga waxaadan qaadi karin oo inaan ku heshiin inaan kugu khasbana ma rabo oo 10 ilaa dhammaystir ku oran mayo. satajidunii waxaad i heli doontaa in shaa allah ilaahay haddii uu doono, ilaahay idankiisa min asaalixiin kuwa suusuuban oo dadka wanaaga kula dhaqma inaan ka mid ahayna waa arki doontaa. odagii wuxuu qaatay, ama haddii layidhahdo waa nabiyullaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam, sida culimmada qaarkood ay yidhaahdeen gabadhii taladeedii. halkaa waxaa ka muuqanaysa dumarka mararka qaarkood taladooda in lala tashado, taladoodana la qaadanayo. maxaa yeele marar badan baa tala fiican ilaahay ku aadinaya. gabadhiisii taladeedii wuu qaatay aabbihii. qaala wuxuu yidhi innii anigu uriidu waxaan doonaya an unkixaka inaan kugu nikaaxiyo ixdabnataya labadan gabdhood middood haatayni oo labadan. teebay ahayd? miday doonto ha noqoto, allahu aclam, waxbayna kama qusaya. calaa an ta'juranii, muxuuna marka meher uga dhigaya? waa kan calaa an ta'juranii inaad ii shaqaysid oo ajiir aad ii noqotid 8 xijaj sanooyin oo 8 ah. aayaddan rag baa waxay u daliishadeen yaradka, oo waxay yidhahdeen yaradka nabiyullaahi shucayb baa bilaabay, haddiiba ninkan uu yahay nabiyullaahi shucayb, allahu aclam. arrintaasina sax ma aha. waxaani waa meherkii, meherkuna nafac waa noqon karaa. sidoo kale looma daliishan karo aabbuhu gabadhiisa meherkeeda inuu wada qaadan karo oo isaga keligii uu ka faa'iidaysan karo, sida culimmadu u badan yihiin. oo aabbuhu ilmihiisa wuxuu ka qaadan karaa xoolihiisa wixii ilmaha aan dhib ku ahayn oo uu raalli ka yahay ilmuhu. ilmahana aan dhib ku ahayn, xataa hadduusan raalli ka ahayn aan dhib ku ahayn. laakiin inuu yidhahdo gabadhii meherkeeda o dhan baan qaadanaya, waxba kuu reebi maayo, sax ma ah. amaa arrintan inay haddii waqtigaas ummaddaas meeshaa deganayd inay sidaa xalaal u ahayd waa dhici karta. si kale odagu inuu ugu celiyey gabadhiisa waxna waa dhici kadhaa, allahu aclam. laakiin inagu uma deliishan karno odagu gabadha meherkeeda siduu doono inuu ka yeeli karo, sida culimmada inta badan ay fatwoodeen, allahu aclam. fain atmamta haddaad dhammaystirtid 10 fa min cindik adiga agtaada xaggeeda ayay ka ahaatay. taladeeda adaa iskaliya go-aankeeda, laakiin codsi baa ku jira, waad aragta. wamaa uriidu mana doonayo an ashruqa inaan kugu dhibo calayka adiga korkaaga waxaynaan ku heshiinna inaan kugu dhibo ma rabo oo ilaa 10 dhammaystir inaan ku idhaahdo. satajidunii waxaadna heli doontaa in shaa allah
ilaahay mashiicadiisa ayuu barakaysanaya waa ka maxaa yeelay wax imaan doona ilaahay baa og marka weligaa waxaad qaban doontaa ha odhanin ilaa wa ilaa anaa qabanayehe mashiicada ilaahay ku xir satajidunii waxaad iga heli doontaa in shaa allahu allah haddii uu doono ilaahay idankiisa min asaalixiin kuwa suusuuban oo xaqa ilaahayna yaqaan xaqa addoomahana ka soo baxa inaan ka mid ah qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam daalik heshiiskaas itifaaqaas iyo heshiiskaas ayaa beynii aniga dhexdayda wa beynaka iyo dhexdeeda ahaa heshiiskaa ayaa inoo dhexeeya daalik waa mubtadihii beynii wa beynakana waa khabarkii wey daalika cahdigaa iyo ballanta iyo heshiiskaas ayaa beynii wa beynak aniga iyo adiga inoo dhexeeya ayama alajalayni labada muddood toodii qadaytu aan dhammaystiro oo aan gudo falaa cudwaana wax collaytanah calaya aniga korkayga noqon mayso labada muddo 8 ama 10 tii aan dhammaystirana eed kumalihi waa ka haddii 8 aan dhammaystirana waasaan ku heshiin haddaan 10 labada ku daro 10 kaan dhammaystirana iyadana haddii kaba si fiicanba laakiin labada maxaa ugu dari weyday lay oran maya hadhow ayama alajalayn labada muddo toodii qadaytu aan gudo aan dhammaystiro falaa cudwaana wax collaytani calaya aniga korkayga ma aha oo macnaha laygu eedayn mayo wallaahu allah ayaana calaa maa naquulu waxaan ku hadlayno wakiilun wakiilka ah markii dadku ay heshiis gelayaan hadalkan in la yidhaahdo waa fiican waa ka nabiyullaahi muuse hadda waa yidhi calayhi salaatu wasalaam horena waxaan ugu soo marnay suuratu yuusuf inuu sidaa yidhi markii wiilashiisa ay kula heshiiyeen nabiyullaahi yacquub wiilkii labaad inay ka kaxayaan wallaahu calaa maa naquulu wakiil warkaasuu yidhi laakiin inagu hadda sidaa uma isticmaalno laakiin qur-aankeenu ka arkaynaa haddaad cid heshiisaan warkaasaa la raaciya ilaahay baa ballantaa marka ilaalinaya subxaanahu wa tacaala falamaa qadaa markuu dhammaystiray muusa nabiyullaahi muuse alajala muddadii waa la tacriifiyey teebay ahayd culimmadii waxay u badan yihiin 10 sano maxaa yeelay qofka wanaagsan waxaa laga filaa waxa ugu wanaagsan inuu sameeyo falamaa qadaa markuu dhammaystiray muusa nabiyullaahi muuse alajala muddadii labadii muddo macnaha tii fiicnayd oo wasaara uu soo socday biahli ehelkiisiina uu la soo guureeyey oo dhulkii madyan uu kala soo noqdayoo masar uu ku soo noqday oo wasaara uu soo socday macnaha uu soo kaxaysta uu la soo socday biahlihi ehelkiisii waa xaaskiisii ciddii kale uu helisaye aanasa wuxuu arkay min jaanibi tuuri buurtii dhinaceedii naaran iftiin buu ka arkay dab markaa isagu u malaynayo dab baxaya ayuu ka arkay qaala wuxuu u yidhi markaas liahlihi ehelkiisii wuxuu u yidhi xaaskiisii wuxuu u yidhi umkuthuu nagaada buu yidhi meeshaan sii joogo halkiina ha ka dhaqaaqinin innii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab baan arkay dabkaas ayaana aaday lacallii waxaan mudnahay aatiikum inaan idinkala imaado minhaa dabkaa xaggiisa bikhabarin war inaan idinkala imaado aw jadwatin ama dhuxul oo min annaari dabkii ka mid ah inaan idinkala imaado ayaan mudnahaye sii jooga dhowaan ayaynu soo marnay markuu dabkii arkay ayuu xaaskiisii wuxuu ku yidhi halkaan sii jooga meeshiina ha ka dhaqaaqnina dabkaasaan aadayaa warna waa idinka keenay oo culimmadu waxay u deliishadeen inay waddada ka dhumeen war waddadii ku aadiya ayaan idinka keenay aw jadwatin min annaarina waxaa loo deliishaday waqti dhaxan ah inay ahayd oo markaas ay kulaalaan ama ay ku diirsanayaan aw jadwatin ayaan idinka keenayaa dhuxul oo min annaari dab ka mid ah dabkii ka mid ah lacallakum waxaad mudan tihiin tasdaluun inaad diirsataan oo aad kulaashaan qabow adag baa jiri falamaa ataahaa dabkii markuu u yimid nebigii calayhi salaatu wasalaam meesha dab ka bixi maaye nuur baa ka baxaye nuudiya waa loo dhawaaqay nebigii calayhi salaatu wasalaam waa loo yeeray min shaati'i ilwaadi togii dhinaciisi shaadi aslaan xeebtaa layidhahda waxaa loo jeedaa togga dhinaciisa ayaa looga yeeray al aymani ee midig macnaha isaga marka loo eego nebiga calayhi salaatu wasalaam dhinaca midigtaa ka xigta fi lbuqcati
buqcaddii dhexdeedii ayaa looga yeeray almubaarakati ee la barakeeyey maxaa yeelay waa meeshii ilaahay uu kula hadlay ugu horeyn nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam oo barakaysan weye oo min ashajarati geedii ah kusii bayaani buqcada shaadi baa marka hore lagu sheegay shaadigaasi wuxuu ka mid yahay waa toga dhinaciisa al aymani baa lagu sii tilmaamayo markii nebiga loo eego calayhi salaatu wasalaam midigta ka xigtaa meesha filbuqcati ayaa lagu sii caddeeyey shaadi buqcadii baa waxaa laga sifeeyey almubaaraka ee la barakeeyey markaas waxaa weliba lagu sii bayaani oo min ashajarati geedii ah oo macnaha culimmadu waa iyaga yidhi geedkani wuxuu ka oolaa dhinaca ama geeska toga salkiisu ka oola nuurkuna geedka salkiisa ayuu ka baxaya halkaasoo looga dhawaaqay marka maxaa lagu yidhi marka an yaa muusa maadaama nidaagu bimacnaa qowl uu yahay antaan waxaa ugu horeeyo laga dhigayaa waa mufasiradii culimmada qaar baa yidhi tii mukhafaf min athaqiilana way noqon kadhaa an yaa muusa ayaa loogu yeeray muusow allah baa u yeeray innii anigu allaahu allah baanahay rabbulcaalamiin uunka oo dhan rabbiga uu ahaayo isagu iska lahayo maamulay oo abuuray wa an alqi ayaa loogu yeeray oo la faray tuur casaaka ushaadana tuur baa layihi falamaa ra'aahaa ushii markuu arkay tahtazu xaal ay tahay mid gilgilanaysa ordayso dhaqaaqaysa kaannahaa waxaadba moodaaba jaanun waxaadba moodaaba abees ayaad moodaa abees macnaha mas dhinacna abeesa ka ahoo xoog badan ayaad moodaa siduu u ordayo falamaa ra'aahaa markuu arkay ushii tahtazu xaal ay tahay mid ordaysaho ee dhaqdhaqaaqaysa kaannahaa waxaad moodaa jaanun abees baad moodaa wallaa wuu cararay nebiga calayhi salaatu wasalaam mudbiran xaaluu yahay mid dhabarka jeedinaya walam yucaqib mana soo laaban caguhu wax ka day markaasa ilaahay la hadlo yaa muusaa muusow aqbil soo laabo soo jeenso soo laabo walaa takhaf hana cabsanin innaka adigu min alaaminiin kuwa nabdoon ayaad ka mid tahayo wax agta ku gaarayaa ma jiraan ilaahay agtiisana mursaliintu kama cabsadaane soo noqo cidina wax ku yeeli mayse markaasuu soo noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam mar kale waxaa lagu yidhi usluk geli yadaka gacantaada fii jaybika jeebkaaga geli culimmadu waxay u badan yihiin waa meesha khamiisku uu ka furan yahay halkaas culimmada qaar baa yidhi maya waxaa loo jeedaa kilkilada hoosteeda allahu aclam fii jaybika asal ahaan jeebka carabtu waxay u taqaan inagu kan wax lagu ridayna u naqaana laakiin meesha khamiisku uu ka go-an yahay ama gacanta magaranaysa meesha laga geliyaho dharka uu ka bannaan yahay ayaa la yidhaha takhruj way soo bixi gacantii baydaa'a xaal ay tahay mid nuur badan oo iftiimaysa min gayri suu'in xumaan la'aanteed cudurna lama caddaanine waxay la caddaatay waa aaya min aayaati illaah takhruj way soo baxaysaa gacantii baydaa'a xaalay tahay mid nuuraysa oo iftiin badan sida dayaxaasoo kale u nuuraysa min gayri suu'in xumaan la'aanteed macnaha cudur lama caddaane waa aaya min aayaati illaah wadmum dun ilayka adiga xaggaaga janaaxak gacantaadana xaggaaga u dun min arrahbi cabsida xaggeeda gacantaada u dun meeshaan culimmadu waxay u badan yihiin waxaa loo jeedaa janaaxa sideeda waa gacanta oo meesha shimbiraha baalku u joogo ayaa qofka bini aadanka ah gacantu ay u joogtaa maxaa yeele marka la soconaya waad aragtayo qof hadday gacmuhu xiran yihiin si fiican uma socon karo marka waxaa loo jeedaa bay yidhaahdeen cabsida maadaama argagaxuu kugu dhacay gacantaada laabtaada saar qofku haddii wax la intuu baqo laabtiisa gacanta uu saaro cabsidii way ka ba'aysa wadmum dun ilayka adiga xaggaaga janaaxaka gacantaada min arrahbi cabsida xaggeeda gacantaada laabtaada saar fadaanik labadan mucjizo istithnuhu wuxuu u noqonayaa waa ushii iyo gacantii burhaanaani laba xujo weeye laba mucjizo weeye oo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaa waa laba xujo waaweyn oo rabbigaa xaggiisa ka ahday rabbi uu ku siiyey oo tusinaya allah xaggiisa in lagaa soo diray
ilaa fircawna labadaa xujo mursalataani loo diray oo aad gaarsiinaysid ilaa fircawna gaalkii fircoon aha wa mala'ih iyo madaxdiis innahum fircoon iyo madaxdiisu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo ayay ahaayeen faasiqiin oo ilaahay daacadiisa ka fogaaday oo ilaahay ku kufriyey fisqigaana waa kii kufriga ah qaala wuxuu yidhi nebigii calayhi salaatu wasalaam rabbi yaa rabbii rabbigayow innii anigu qataltu waxaan ka dilay minhum fircoon iyo macnaha madaxdiis xaggooda waxaan ka dilay hadda ka hor nafsan naf baan ka dilay fa akhaafu waxaan ka cabsanaya haddaan u tago an yaqtuluunii inay i dilaan ayaan ka baqaya wa akhii walaalkay haaruunu huwa isaga afsaxu iga faseexo badan minii aniga xaggayga lisaanan xagga carabka xagga hadalka iyo luqada iyo fasaaxada walaalkay haaruun ayaa iga fasaaxo badan wa akhii walaalkay haaruunu huwa isaga afsaxu iga fasaaxo badan oo hadalka iga caddayn badan minii aniga xaggayga lisaanan xagga luqada iyo hadalka oo waatii nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasallam carabkiisa xoogaa guntinaa ku jidhayo waa inagii soo marnay waxal cuqdata min lisaani yafqahu qowli fa arsilhu ilaahayow dir wa akhii haaruun huwa afsax minii lisaanan waxay daliil u tahay alictiraafu bilfadli haddii shaqo laguu diro oo qof kaaga fiican uu jiro inaad tidhaahdid war hebel baa igaga fiican sida maanta jidha wax walba qofku anaa aqaan inuu yidhaahdo ma ah war shaqada anaa is ogo waa laygaga fiican yahay tan kale waxaan u deliishanaynaa dacwada iyo khayrka in laysu kaalmaysto inay tahay shay shareecada iyo ilaahay kitaabkiisa ka mid ah khayr baa loo diray ciduu u kaalmaystuu raba walaalkiis ayuu markaas u dooray in ilaahay rasuul uga dhigo fa arsilhu dir ilaahayow maciya aniga la jirankayga haaruunna isagana aniga la jirankayga dir oo rasuul ka dhig rid-an xaal uu yahay ee dhabar adkeeye kaalmeeye xaal uu yahay ii kaalmaynaya oo yusadiqunii haddana ii rumaynayaho ilaahay xaggiisa in layga soo diray haddana ii rumaynaya oo markhaanti ii ah waa ka halkaana waxaan ka arkayn waxaa la yidhaahdaa qof adduunkan qof kale fadli u galay abaal u galay waxaa ugu weyn nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasallam abaalku walaalkiis u galay maxaa yeele ilaahayba wuxuu weydiistay inuu rasuul uga dhigo walaalkiis ilaahayna waa uga dhigay subxaanahu wa tacaala darajo bini aadan gaaro waa midda ugu sarraysa innii anigu akhaafu waxaan ka cabsanaya haddaan u tagno an yukadibuunii inay ibeeniyaan ayaan ka baqaya sidaa daraaddeed ilaahayo arrimaha igu kaalmay buu yidhi wabilaahi towfiiq صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك أفلحت في الأولى وفي أخراك